daryeelka caafimaad ee loo sameeyo haweenka xilliga uurka waxaa lagu magacaabaa antenatal care. waa daryeel haddii haweenka uurka leh u fahmaan una fuliyaan si sax ah sare u qaadi kara caafimaadka hooyada iyo cunuga uurka ku jira labadaba. cilmi baaris la sameeyay dhowaan waxay cadeynayaan in Soomaaliya safka hore ugu jirto wadamada ugu badan xagga tirada dhimashada loo sababeeyo uurka. casharkeena maanta ayaa ku faahfaahin doonaa daryeelkan waxa uu yahay, xilliga saxda ah ee hooyada uurka leh bilaabayso, meesha ay ka bilaabayso daryeelka, cidda bixinaysa daryeelka, iyo sida loo sameeyo daryeelka. waxaan ku soo xiri doonaa dhibaatooyinka dhalan kara haddii ay hareer marto habraaca loo dejiyay daryeelkan. soo dhawaada mar kale. halkan kala soco barnaamijyo caafimaad oo taxan ah, talooyin muhiim ah oo ku aadan caafimaadka sida wacyigelinta bulshada ee ka hortagga xanuunada halista ah iyo daaweyntooda. maalin kasta 4 galabnimo saacadda Geeska Afrika. waxaa barnaamijka idiin soo gudbin doono Dr. Timujira. fadlan subscribe channelkeena haddii aad ku cusub tahay. sidoo kale muuqaalada aan soo gelino like saar. waana ku mahadsantihiin daawashada muuqaalada aan soo gelino. mahadsanidin. Antenatal care waa daryeel caafimaad oo la siiyo hooyada xilliga uurka si sare loogu qaado loona ilaaliyo caafimaadka hooyada iyo ilmaha uurka ku jira si loo yareeyo khatarta dhimasho ee hooyada iyo ilmaha uurka ku jira labadaba. daryeelkan waxay hooyada uurka leh ka heli kartaa xarumaha caafimaadka sida MCH-yada iyo isbitaalada qaar. daryeelkan waxaa bixiya xirfadlayaal caafimaad oo u tababaran bixinta daryeelkan, kuwaas uu ku gudbin doono dhakhtar haddii loo baahdo. waxaa habboon inaad xaadirto xarumaha lagu bixiyo daryeelkan xilliga ugu horeyso ee aad xaqiijiso inaad uur qaaday. xirfadlayaasha caafimaadka waxay ku taliyaan in ugu dambeyn aad soo xaadirto isbuuca 12aad ilaa isbuuca 16aad booqashada koowaad. isla booqashada koowaad waxaa lagu sameyn doonaa fayl ama kaar ku gaar ah kaas oo lagu qori doono dhammaan xogtaada. haddii aysan jirin xaalad caafimaad darro oo gaar ah, waxaa lagu taliyaa in hooyada ay booqashadeeda u qaabayso sida soo socota. 1. booqashada koowaad isbuuca 12aad ilaa isbuuca 16aad inta u dhaxaysa maalin ka mid ah inay hooyada booqato xarunta caafimaadka. booqashada labaad isbuuca 20aad ilaa isbuuca 24aad ee uurkeeda maalin ka mid ah inay booqato xarunta caafimaadka. booqashada saddexaad isbuuca 28aad ilaa isbuuca 32aad ee uurkeeda inay maalin ka mid ah booqato xarunta caafimaadka. booqashada afaraad waxaa lagu sheegaa in ay fiican tahay inay booqato xarunta caafimaadka toddobaadka ama isbuuca 36aad ee uurkeeda haddii aysan jirin xaalad degdeg ah ama xaalad caafimaad darro ee soo korortay. afartan booqasho ayaa muhiim ah hooyada inay marto ama inay samayso xilliga uurka. inta aad guda jirto booqashooyinkan afarta ah waxaa si dhow loola socon doonaa xaaladaada caafimaad iyo tan cunuga labadaba. waxaa laga baari doonaa wax kasta oo halis gelin kara xaaladaada caafimaad iyo tan ilmaha uurka ku jira labadaba, sida dhiig la'aan hadday jirto, cudurka duumada iyo xanuunada galmada lagu kala qaado oo ay ka mid yihiin waraawowga ama isfiilitada, jabtada, cagaarshowga nooca B, HIV/AIDS iyo qaar kaloo badan. sidoo kale waxaa laga baari doonaa heerka cadaadiska dhiigga iyo heerka sokorta ee dhiigga si loola tacaalo xanuunada dhiigkarka iyo sokorowga xilliga uurka haddii ay yimaadaan, ama si lagu siiyo talooyin kaa caawinaya ka hortagga xanuunadan xilliga uurka. sidoo kale inta booqashada guda jirto waxaa lagu siin doonaa talooyin ku saabsan cuntooyinka iyo fitamiinada jirkaada u baahan yahay xilliga uurka si sare loogu qaado caafimaadkaada iyo kan ilmaha uurka ku jira labadaba. haddii goobta daryeelkan lagugu sameynayo uu yaalo kombiyuutarka ultrasound-ka, waxaa kuu suurtagali doonta inaad hesho macluumaad dheeri ah sida positionka cunuga uu yaalo, aan ula jeeda qaabka cunuga uu yaalo, hadduu yahay madax keen, hadduu yahay daba keen, hadduu yahay dhinac keen iyo wax lamid ah, iyo sidoo kale koriimada cunuga oo sameynayo, caafimaadka wadnihiisa iyo wax lamid ah. waxaa qaadan doontaa tallaalka teetanada inta aad guda jirto booqashooyinkan afarta ah. wacyigelinta ku aadan daryeelka caafimaadka ee xilliga uurka antenatal care wax loo yaqaano wadankeena aad ay ugu yar tahay, waana sababta keentay
yacni in inta badan aa aragto yacni ilmo sidaan u yaala ama sidaan u yaala ama sidaan u yaala. Qaar kaloo badanna ee isbitaalada u jiifaan xanuuno kala duwan oo ay ka dhaxleen daryeel xumo ku timid xilliga uurka, ama waa sababta keentay inuu inay ziyaado tirada dhimashada hooyooyinka xilliga uurka. Waxaa laga yaabaa inaad maqasho yacni hooyo ayaa umul raacday ama hooyo ayaa dhiig la'aan u dhimatay xilliga uurka iyo wax la mid ah. Marka xaaladdan waa xaalad aad u dhib badan, wacyigelintana aad ayay u yar tahay oo haweenka inta badan guryaha ayay ku dhalaan. Iskaba dhaafa inay yacni ay imaadaan MCH ama isbitaal iyo wax la mid ah, ama iskaba dhaafa inay macnaha antenatal care-kan ay sameeyaan. Inta badan wacyigelin fara badan ma helaan. Waxaa aad noogu yar xarumaha caafimaadka waddankeena. Waxaa laga yaabaa caasimadda oo keliya in yacni xarumo badan ay ku yaalaan. Gobollada iyo markaa tagto iyo tuulooyinka iyo degmooyinka qaar waxaa laga yaabaa hal xarun caafimaad inaan ku arkin, ama haddaa ku arag dad ka shaqeynaya inaysan ahayn xirfadlayaal caafimaad, laakiin danta iyo duruufta iyo xaaladda ay biday yacni inay ku shaqeeyaan xirfadda caafimaadka yacni ayagoo waxba aan ka garanaynin. Marka waxaan rajeynayaa cashirkan yacni inaad ka faa'iideysan doontaan insha Allahu. Waa isku wacyigelin ku saabsan antenatal care-ka ama daryeelka caafimaadka ee hooyada loo sameeyo xilliga uurka. Insha Allah intaas kusoo gabagabaynaynaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.